عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواذا هبين عصب إيو wellness with إكرام عابو وحان كهadlaynaa shan qodob aan soo qabsanaynaa oo run ahayn dadka badankood waxyaabo oo waxaa jiraan aan anaga iska dhaadhicino inay run yihiin markii laga hadlayo caafimaadka maskaxda ama waa qiyaasnaa inay run yihiin waa u malaynaynaa inay run yihiin laakiin qodobyadaasito run ma aha aan marka waxaan ka hadlaynaa maxay yihiin qodobyadaas oo beenta ah iyo maxaan ka qaban karnaa so midda koowaad oo aan kulligeen aaminsanahay waxa waaye qofka haddii cudurada oo maskaxda ay ka tabanayso way waalan tahay aan dhahna anaga so waxaan naqaanaa qofka ama way waalan tahay ama ma waalna dhexdhexaad ma jiro qodobkaas horta qalad waaye qofka haddii maskax ka tabanayso cudurada maskaxda qasab maaha inay waalnaato oo dad badan oo fiican oo waxba qabinaa jiraan oo just waxaa yani cudurooyin oo masalan dareenkooda inuu dhibaayo ama ay just wax stress kusoo zaa'ido markaas murug camal ku noqoto jiro qasab maaha qofka inay waalnaato sida markii oo adoo fiican oo waxba aadan qabinaa waxaa dhici karto masalan cholesterol camal qofka cholesterolka qabto qof jiran ma aha yes cudurkaasayta uu zaa'idsan yahay laakiin daaway qaadanaysaa way nooshahay meesha rabtay ka bixi kartaa meesha rabtay ka boodaa wax dhibaato ah kuma jirto soo cudurada oo maskaxdana saas camal waaye qofkii oo fiican oo shaqaysanayso oo familkeeda take care garanayso oo wax kasta oo aad samayn kartid ay samaynayso wuxuu uu kordhisan yahay inay masalan depression qabto ama anxiety qabto ama bipolar qabto so as long as qofka daawadeed qaadato wax dhibaato ah ma ku jiro so taas marka midda koowaad waaye aan runtii like maraykanka haddii westigan joogna hadda wadamada galbeedka waxay dhahaan shantii qofba hal qof cudurada maskaxda ka tabanayso so fiiri hadda dhinacyada dadka fadhiyaan shan qof haddaad tihiin hal idinka mid cudurada maskaxda ka tabanayo laakiin adima ogaan kartid unless qofkaasayta ay kuu sheegto so taas qodobka koowaad waaye qodobka labaad waxa waaye cudurka oo maskaxda lagama hortagi karo waxaad samayn kartid oo ka hortag ma jiro ee dadka dhahaan horta runtii taas run waaye dhinaca oo waxaa haddii loo fiiriyo cudurka hadduu yahay dhaxal hadduu yahay generic hadduu yahay hadduu yahay trauma qof ay ku dhacday trauma waxa waaye qof oo dhibaato soo martay haddee tahay masala yani qaxi camal qof oo waxaa dad la dildila camal haddaad soo aragtid wuxuu kugu noqon karaa cudur kugu noqon karaa oo hero waxay qofka gaari kartaa inay ku qarowdo wixii ay noolaaweyso so taas life event soo martay waaye kaas si gooni ahaan ooga hadli doonaa mar kale laakiin traumada markay tahay waxaa adi controli karin waaye because waxaa ka qaban kartid ma laha so dhaxal hadday tahay iyo family history waa ka hadalna family history haddii oo dadka familkooda ku jiraan qof oo cudurada qaarkood ka tabanayaan dan way dhici kartaa so waxyaabaha oo anaga bani aadan ahaan aan controli karin wax ma ka qaban karnay so dhinacaas wax ma ka qaban karnay laakiin dhinaca wax aan ka qaban karnaa jiro dhinaca oo waxa waaye sidee adig masalan iskugu dadaali lahayd waxyaabo oo waxaa jiraan oo fiican inaa bani aadanka masalan inuu naftiisa take care gareeyo waxaa ka mid masalan inaa cuntid oo naftaada baahi ku dilin si oo jirkaaga iyo maskaxdaada way isku xiran yihiin waxaan dhahnaa anaka carabta waxay dhahaan alcaqli saliim fi jismi saliim so maskaxda oo tamaamka oo fiican jir fiican ay u baahan tahay so jirkaaga kooda inaa nooleysid waaye si fiican oo u take care garaysid so cunto fiican inaa cuntid waxaa kaloo ka mid masalan inaa hurdo fiican heshid habeenkii u yaraan bani aadanka wuxuu u baahan yahay 8 saacadood maalintii inuu hurdo habeenkii inuu hurdo so inaa si fiican u hurdid habeenkii waxaan dhahnaa anaka masalan routine qofka inay lahaataa fiican oo waqti معين ay habeenkii seexato subaxii waqti معين ay soo kacdo dhalinyarada badankood waxaa arkaysaa especially teenagers hadda summer lagu jiro iskoolaadku way xiran yihiin so hadda camal waxaa arkaysaa dhalinyarada habeenkii dhan waa soo jeedayaan subaxii dhan way hurdayaan systemkooda dhan ay khaldooyin حتى دينتين ما دقيس إلهي قرآن كيس بحكي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا سو هبينكي وحلو طلقة إن على السيح ذا هرد للنصتو سبحانه إلا إن على شقيستو أو لا ذاتك اللي قدر سمو أو يعني عمل كاجس وبستين سو مركا it's very important إن روتين قفك لحاته
exercise is very important qofka inay dhiiggiisa shaqaysiiso haddaad tahay qof yar masalan oo ama shaqaynin ama hadda samra lagu jiro again so dhalinyaro badan kood hadda iska fadhiyaan no get up basketball ciyaar yani dhiiggaaga shaqaysiya exercise u samee the more oo jirkaaga aad takirgaraysid the more likely maskaxdaada inay ay ka faa'iidaysato oo also maskaxdaada aad takiraysid so kaas qodobkii labaad u ahay qodobka saddexaad waxa waaye dadka badankood waxay aaminsan yihiin dadka oo cudurrada maskaxda qabaan inay violent yihiin violent waxa waaye qofka ee dagaalyahan waaye qofka dad oo waxa waaye la dhahaa oo dad laga qabsado waaye ayaa la aaminsan yahay taas qalad been waaye runta haddii la sheego because ani hadda waxaa ugu yaraan 7 sano waxaa la shaqeynayaa dad oo mentally ill dadka oo maskaxda ka tabanayaan and especially hadda 3 sano oo ugu dambeysay oo la soo dhaafay waxaan kala shaqeynayay dadka oo severe waxa qabaan maskaxdooda aad iyo aad u jiran tahay so depression iyo maaha waxaan ka hadloonaa dadka oo schizophrenia qabaan dadka psychotic oo isla hadlaan ama dadkii dhihi jirnay Soomaaliya markaa joogno oo dadka turiyay jiray hadda xasuusan kartid Soomaaliya markii la joogay oo dadkaas inta la shaqeeya and marka the more aan u sii dhawaado aan si fiican u barto waxaan arkaa inay dad masaakiin yihiin oo dad oo kala dulmiya dadkan ee most of the time is difaaci karaan kala is difaaci karin oo la dulmiyay ma inay violent yihiin so markii haddana loo fiiriyo annaka si guud gaar ahaaneed Soomaalideena runtii yani Soomaalida somehow cudurrada oo maskaxda wayba ka xishoodaan ma sheegtaan so qofkii usoo banaftiisii already ku kalsooneen because cudurkaas oo qaba haddana waxaa loogu sii daraa aflagaada iyo oo alan yakan hadalkiis ka soo qaad malaha camal aan laha but that's not nice ma fiicna ixtiraam la'aantaasito cudurka qofkaanayta maysan dooranin ilaaha cudurkaanayta u keenay ilaahayna daawo uma waynin laakiin inaa lagu duqeeyo oo lagu xumeeyo ma fiicna ama laga hadlo isaga lagu dhaga hadlo inuu ku fahmaynin camal because dadkaasayta way ka maskax fiican yihiin runtii markay daawadooda qaadanayaan عادي واي يعني هذه كبدلين كدبين يهين ما جرته it's just وحلو كلرون يهاي ساعدها إداوة دود كتجان أما إنه واحد لا كرت مركزية إسكالي بعتيسين يهين so دت كاسية دت violent ما أهم التاسية هذا يفير صدو احترام ما لو بهاي يهاي دت كخوف كستو يعني again سان لهاي إلهي وين داو لكن إن أكو عبر خاضنو أساس لوجا لجاي so أنك فائدة سنة أكو عبر خاضنو مدة أفراد وحواية dadka oo waxa la cudurada maskaxda cudur oo forever waaye qofkii oo lagu sheegay weligeed way qabaysaa cudurada way kala duwan yihiin cudur oo waxa jiro sida aan ahanay like cholesterol camal hadda daawadaada qaadatid oo exercise gareysid oo waxyaabaha oo cadiinta badan iska yareysid waa iskroon aan cholesterol ka yara kara oo ka bixi kara korkaaga nadiif ka noqon kara so sidoo kale waaye markii oo cudurada laga hadlo oo maskaxdana cudur oo waxa jiraan daawada hadda qaadatid oo routine ku socotid oo naftaada takir gareysid way dhamaanayaan therapy is very important in aad qof ala sheekeysatid oo kugu caawinto whatever mushkila ah markaasayto ku jirsid inay ka bixiso ama kula taliso basically hadda heshid markaas واسيد ما كرتا يعني عذرك ويرانا وفيعنا نيسا so خصب معها forever إن كنين اللي خادن يسيد وحاجرة درت قاركود again ودي كرتا إني داوين قاتن forever especially عذرة أو هذا خفت like schizophrenia عمل like taas marka severe markay tahay like way ka duwan tahay marka oo waxa aan ka oo minor ka wax yar iyo wax way cudur yar jiraan iyo cudur waaweyn jiraan so markii oo cudurada yar ka laga hadlaayo qofka mental illness ay qabtaan you know laakiin ma aha wax oo زائد waxa waa la daaweyn karo oo la control karo aan qofkii u shaqeysan kartaa ay noloshiis meesha ka wadan kartaa so marka qof kasta oo mental illness qabta oo malaynin inay forever kaniini qaadaysa hadii kale wax dhibaato keenaysa ma isas maaha so midda ugu dambaysa oo shanaadna waxa waaye dad badan waxay iska aaminsan yihiin qofka cudurka oo maskaxda wuxuu ugu dhacaa because qof daciif ah waaye not necessarily qof daciif inay ahaatid meeshan ضعيف iyo xoog leh lagama hadlooyo qofka maskaxdiisa daciif iyo maskaxdiisa xoogan ma kala aha qofka wuxuu u dhacaa sababooyin badan ama dhaxal ha ahaada ama waxa ha ahaado maskaxda kimiyada ku jirta inay simneen ama whatever ay tahay trauma dhibaato oo ay qofka soo martay ee adkaysa weysa ha ahaado laakiin taas daciifnimo ma aha
qadar allahu ma shaa facal waayo wax oo dhinac ilaahay xaggiis ka socdo waayo wayna dhacday marka ma fiicna inaa dadka lagu aflagaadeeyo oo iyagoo iska dhibanaayeen inaa lagu sii xumeeyo oo laho qofka daciif ah tahay isnooley iyo waxyaabaha qaarkood aan dhahno marka intaas waxa waaye aan kusoo maanta gabagabaynaa 5 qodob oo beenta ah oo dadka iska qiyaaseen ay iska alifteen basically oo markii laga hadlayo cudurrada maskaxda waa intaas iyo nabadgelyo insha Allah باذن الله inoo khamiista dambe and hadda video ka heshid make sure inaa like subscribe thumbs up nasiisid insha Allah waa mahadsantihiin iyo waa khamiista dambe insha Allah waa nasbada kram. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.